السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaal kale ka waran haddii mouska kombiyuutarkaaga ama laptopkaada uu xumaado isla markaana aad rabto inaad qabato hawl ama shaqo laga maarmaan ay tahay inaad kombiyuutarkaaga ku qabato maxaad samayn lahayd muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa sida aad kombiyuutarkaaga u maamuli karto adigoo aanan taabanaynin mouska ama haddaan si kale u dhigo adigoo adeegsanaya keyboard shortcut sida aad kombiyuutarkaaga u maamuli karto software furan aad u xiri karto software kale aad soo furan karto folder cusub aad u samaysan karto haddaad doontana kombiyuutarkaaga u baqtiin karto iyo waxyaabo kale badan oo keyboard shortcut aad ku samayn karto faa'iidooyinka uu leeyahay keyboard shortcut-ka waxaa ka mid ah haddii aad tahay qof saacado badan kombiyuutarka ku shaqeeya oo howlo adag ku qabta in aad waqti kooban ku samayn karto waxyaabo badan tusaale ahaan marka aad doonayso inaad folder samayso haddii aad mouska aad ka samaynayso waxaa laga yaabaa inaad right click aad siiso new kadib new folder sidoo kale marka aad doonayso inaad kombiyuutarka aad baqtiiso lagagama sheekeynayo dee intastaba aad mari karto sidoo kale faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah haddii ay dadka kugu arkaan dee adigoo kombiyuutarka sida keyboardka dhagdhagdhag ka siinaya wax laga yaabaa inay is yidhaahdaan qofkan malaha faruhu kaga gaftay kombiyuutarka balaayu ku qabaa balse intaan muuqaalka bilaabin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like aad saarto comment inaad ka bixiso si uu sii faafo sidoo kale haddii aadan channelka subscribe dhihin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe aad saarto haddii aad hore u saarteena waxaan ku leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantay okay shortcut-ka ugu horeeya marka aad tahay qoraa ama programmer waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in laba software oo aad ku shaqaynayso inaad soo wada dhigato mar kaliya shaashadaada si marka aad u soo dhigato laba software shaashadaada mar kaliya aad u soo wada dhigato waxaad tegaysaa mid ka mid ah labada software ee aad doonayso inaad barbar dhigto ama aad dhinac dhigto kadibna waxaad isla taabanaysaa Windows-kii iyo arrows-ka mid ahaan left arrow ama right arrow kolba ka doonayso marka aad taabato oo software-kaasi dhinac ka mid ah shaashadaada uu tago waxaa kuu soo bixi doona software-da kale kombiyuutarkaaga ku furan kadibna kan aad doonayso inaad soo barbar dhigto ayaad taabanaysaa okay shortcut-ka xiga marka aad rabto inaad soo furto software-da ku yaala taskbarka ama qaybta hoose ee shaashada waxaad taaban kartaa Windows-kiiga iyo waxaad la taaban kartaa nambarada number 1 ilaa iyo number 9 marka nambarada waxay u taagan yihiin software-da ku yaala taskbarka tusaale kan ugu horeeyay markaad soo furayso waxaad taabanaysaa Windows-kii iyo number 1 marka aad rabto inaad ka labaad soo furtana waxaad taabanaysaa Windows-kii iyo nambarka labaad okay shortcut-ka xiga marka aad rabto inaad soo furto software desktop-ka iyo taskbarka midna aan ku oolin ama aan ku yaalin waxaad ka raadin kartaa kombiyuutarkaaga si aad u raadiso waxaad taabanaysaa Windows-kiiga ayaad taabanaysaa kadibna waxaad hore ka qoraysaa magaca software-kaasi marka uu ku soo baxo si aad u soo furto waxaad taabanaysaa enter okay shortcut-ka xiga marka aad rabto in aad folder cusub samaysato desktop-kaaga ama folder kale dhexdiisa inaad ku dhex samayso folder kale waxaad taaban kartaa control shift iyo n ayaad isla taaban kartaa oo macnaheedu yahay new folder kadibna waxaad hore ka qoraysaa magaca aad u bixinayso folderkaaga okay shortcut-ka xiga marka aad rabto ama aad doonayso inaad soo furto file explorer-ka waxaad isla taaban kartaa Windows-kii iyo e-da oo marka macnaheedu yahay explorer okay marka aad rabto in aad shaashadaada meel kamid ah tagto ama software shaashada ku yaala desktop-ka inaad soo furto si aad software-kaasi u gaadho waxaad taaban kartaa calaamada loo yaqaano tab marka aad tab-ka taabato waxaad shaashadaada kala soconaysaa kolba highlight-ka halka uu marayo taskbarka ama shaashada weyn kadibna marka aad ku aadiso ama highlight-ka uu dul tago halkii aad doonaysay enter ayaad siinaysaa si aad u soo furto okay shortcut-ka xiga haddii shaashadaada ay ku soo furan yihiin dhowr software tusaale ahaan 2 3 5 kolba inta doonaan bahaadaane oo aad rabto mar kaliya inaad minimize gareyso halkii aad mid inta u tagi lahayd aad minimize gareyn lahayd waxaad taabanaysaa Windows-kiiga iyo waxaad la taabanaysaa xarafka enter sidaas ayaynu kulligood ku wada minimize gareysmi doonaan okay shortcut-ka xiga tusaale haddii shaashadaada dhowr software aad ku soo furto waxa laga yaabaa in kombiyuutarka culays uu yara dareemo ama ay shaashadaba kaa buuxsanto si markaa software-daadii aadan u xirin waxaad samaysan kartaa shaashad cusub yacni shaashadan ay ku furan yihiin dhowrka software shaashad aan ahayn oo fresh ah ayaad samaysan kartaa si shaashad fresh aad usoo furto waxaad taabanaysaa Windows-kii control iyo d ayaad isla taabanaysaa kadibna waxaa kuu soo furmi doonta shaashadii hore shaashad aan ahayn oo fresh ah okay haddii markaa dhowr shaashadood oo kala duwan aad soo furato ama aad rabto inaad shaashadii hore aad ku noqoto waxaad taabanaysaa Windows-kii control iyo arrows-ka left arrow ama right arrow kolba halka aad doonayso si aad u badbadasho markaasi shaashadihii kuu soo furnaa ama labadii Windows ee kuu furnaa si aad isugu badasho okay shortcut-ka xiga haddii dhowr software shaashada kugu soo furan yihiin ama Windows-ka oo aad rabto inaad software intaad ka tagto software kale aad tagto waxaad isla taaban kartaa Windows-kii alt iyo tab kadibna sida kuu muuqata wuxuu kuu soo dhigi doonaa shaashadan application-ada ama software-da ku soo furan kadibna waxaad taabanaysaa calaamada arrows-ka kolba arrow-ga aad doonayso left and right kolba ka aad doonayso si aad u tagto software-ka aad doonayso
okay shortcut-ka xiga si aad u soo furto task manager waxaad taabanaysaa control shift iyo escape. task manager-ka badanaa marka waxa la soo furaa marka ay kombiyuutarkaada dhowr software ay ku soo furan yihiin oo culays dareemo oo softwaradaas qaar ka mid ah shaqada ay joojiyaan oo aad xiri kari weydo oo calaamada maxay closed ay ku shaqeyn kari weydo ayaa marka waxa la sameeyaa force stop wax la yiraahdo ama si xoog ah ayaa softwarekaas loo xiraa. marka si kale uma xiri kartid waxa u baahan tahay inaad soo furto task manager-ka inaad soo furto oo halka aad ka xidho. marka si aad task manager-ka u soo furto waxaad taaban kartaa control shift iyo escape. okay shortcut-ka xiga marka aad rabto inaad isticmaasho zoom-ta ama magnifier-ka waxa loo yaqaano waxaad taaban kartaa Windows key iyo plus iyo minus kolba ka aad doonayso. marka aad Windows keyga aad la taabato plus-ka micnaheedu waxa weeyaan zoom in, marka aad minus-ta aad la taabatana waxay noqonaysaa zoom out. mar walbana waxa uu soo zoom gareynayaa kolba halka mouse-ka uu ku yaalo ama cursor-kaada aan raahday uu yaalo ayaa ku soo zoom gareysmaysa. okay shortcut-ka xiga marka aad rabto in aad xidho software ku soo furan kombiyuutarkaaga waxaad taaban kartaa keyga ama batoonka loo yaqaano alt iyo F4 ayaad isla taaban kartaa. F4 marka waxay ku taalaa keyboardka qaybihiisa sare ama batoonada sare ayaa waxa F1 ilaa iyo F2 alif wax la yiraahdo ayaa ku yaala. marka waxaad la taabanaysaa F4 ayaad la taabanaysaa. marka aad wada xidho dhammaan softwarada ku soo furnaa kombiyuutarkaaga marka ugu dambaysa markaa shortcut-kan alt iyo F4 la isla taabanayo wax laga yaabaa in kuu soo saaro boxkan oo ah boxka mar walba kuu soo baxa marka aad rabto inaad kombiyuutarkaaga baqtiso. marka boxkan kuu soo baxo awal meel kala taaban ayaad enter siinaysaa sidaas ayuu kombiyuutarkaaga u baqtiin doonaa. haddii aad doonayso inaad sleep u dirtana waxaad taaban kartaa calaamadan arrow-ga up iyo down-ka kolba ka aad rabto ayaad taabanaysaa. marka qaybtan boxka select boxka kuu dooran ee shutdown-ta marka hore ayaa isbedelayay marna wuxuu noqonayaa sleep kolba marba isbedelaya. marka haddii markaa shutdown aad rabto inaad siiso ama aad kombiyuutarka baqtiso marka uu kuu soo baxdo markaa shutdown-ta ayaad enter siinaysaa. enter markaad siiso kombiyuutarka markaa sidaas ayuu isku baqtiin doonaa. muuqaalkana maanta markaa intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan xiga intaan ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.